hantida guri waa iga burburo dhimashada wiil 18 jir iskandariga ka baxay ayaa iga dhintay waxna soo waafaqa waxay raadaan saasaa jidha midna ma aanan arag rajadii nagama dhammaan rajadii kolna aniga igama dhammaan madaxweynaha Puntland waxaanu ka sugaynaa warcad waxa kan isaga dalka isaga madaxweyne ka ah waxa kan isaga sabeeyay warcad baanu ka sugaynaa oo miradhala waxbaan idin hayaa waxba idin ma hayo dawlad dalkii xakunta ku duushay oo dadkii laga leysay dalkana madaxu ah oo la yahay xakunta baabku anaga hal dawlad nooyay ana labada qaybood waxay noo yihiin dawladda waddanka xukumaysa dad baan la kala dad kala laayay dadku hadduu dad kala dilo ergo isu dirsadaayo waxba lagu xaaltama laakiin ma aynaan arag koleysay dawladdan hadeer ugu fikirtay bini aadan quraanjo lama arag bini aadan hatta quraanjo lama arag madax dalka xukunta dadkay xukumaysana aan ku filayne laahintiisi ilaalintiisi tadkeediisi laakiin Soomaalidu waxay tahay ku diray xukuumadda hadda waxaan markaa u taagan marka cad la sheegay fiican dawladda waxa qaabila inaanu helo waxay meel ku intooday cid qabta dawladda qabta heerka qaba odayaasha xaafadahan kamid ahay gurigaygu waa shaandho oo rasaas baa hilfa u qaaday roob ayaan wadaay oo shuux yar oo habeen wadna helay oo nagu soo daayay xaafaduna waa ila mid kuwa iga liita iyo kuwa ila mid iyo kuwa gidaaraduba dumeen bay leeyihiin dukaanaduna waxa weey dadkii dukaanada lahaa waxaan anigu ogahay hadda ilaa 3 dukaan oo macni albaabadu isgaraacayaan oo rasaastii burburisay oo wixii saarna la tagtay oo shaqfada u qaaday waxana ciidamadii iyo dadkii isiryanayay ay bililqaysteen oo hadda dadkii haystay oo halkaas ku asturna ay faramaran taagan yihiin